ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa goobta munaasabada ay ka dhaceysay ku sameeyay bandhig taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa ka waramay hawlihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay ciidanka asluubta Soomaaliyeed tan koowaad oo ah sanad guuda 49aad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed midda labaad oo ah furitaanka xabsiga ugu casrisan qaaradda Afrika oo maantay ra'iisul wasaaruhu uu gacantiisa ku furay iyo dhagax dhigii mashruuca aan u bixinay daaweynta fikirka xagjirnimada iyo barashada diinta islaamka oo maantayto halkan la dhaxdhigay waxaan aad iyo aad mudana ra'iisul wasaare hortaada uga mahadcelinayaa culimada Soomaaliyeed majmac culimada Soomaaliyeed oo mashruucaas inuu najaxo inuu guuleysto gacan weyn ka geystay xagga diinta kitaabka iyo sunnahana ka fiiriyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hambalyo ku aadan sanad guurada 49aad ee aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed u jeediyay meel walba ay joogaan waxaan rabnaa in la aqbalo in ciidanku uu yahay lafdhabarka dalka waxaa la rabaa in meeshii lagu faanayo ay ciidanka tahay meesha qabyaalada ka madaxda bannaan ay ciidanka tahay meesha musuqmaasuqa ka madax bannaan ay ciidanka tahay meesha lagu soo ordo inay ciidanka tahay meesha Soomaalinimada iyo calanka laga difaaco oo ciidanka inay tahay meesha ay dadka Soomaaliyeed u garanayaan maadaama marka taliyayaashii ciidanka oo dhan ay halkan fadhiyaan waxaan rabaa inaad dhinaciina fiirisaan halkan waxaan ugu dabaaldegaynaa ilaahay ha barakeeye generaalkii ciidankan soo aasaasay Ismaaciil Axmed Ismaaciil qof waliba Soomaaliyeed waxa uu aqbalsan yahay inuu dalkiisa wax u taray inteena maanta xukunka joogta ama ilaahay cilmi siiyay oo culimo ah ama wasiir ah ama ganacsato ah ama hameen Soomaaliyeed oo hormuud ah ama dhalinyaro soo koraysa ah waa inaan isweydiinaa su'aashaasi waxay tahay markii ilaahayna soo gaarsiiyo meesha uu generaalkaasi soo gaaray taariikh noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno qof waliba marka waa inuu siyaasaa oo anigu horeeyo oo madaxweynaheenu ugu horeeyo annagu kaliya waxaan rabnaa qarankii Soomaaliyeed oo lagu soo ordi jiray oo derisku ay ixtiraami jireen oo adduunyada tusaale u soo qaadan jirtay oo sharafta iyo karaamada iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed banaanka soo dhigi jiray ceebtana qarin jiray kii asturi jiray qabyaalada kii loo aqbalay in ciidankeenu uu ahaa libaaxyada geeska Afrika dadkii Soomaaliyeed ee qarankaas dhisay qaarna way fadhiyaan qaarna caruurtooda ayaa halkaas fadhida kaliya waa in la aqbalaa in dawladnimo la dhiso in sharafti la soo celiyo in asluubta lagu haminayo dib loo soo celiyo waa in la aqbalaa inay rabto dadaalkaasi waxa uu ka bilowdaa qof walibay marka hore naftaada xisaabi si kulligeen ilaahay uu nooga dhigo inaan helno sharafta uu generaalkaas leeyahay Ismaaciil